السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحرن جنة الكمركة للسود واضح أدي هذا ومهتسنتين muuqaal kan waxaan rabaa inaan idinkula wadaago Iiraan oo caawa gantaalo cusub oo aan horey loo arkin isla markaana saddex nooc ah oo tankoodu waliba aad u weyn yahay ku weerartay dalka Israa'iil arintaasi waan idinla wadaagayaa sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Abbas Araghchi oo wareysi siiyay telefishinka NBC ee Mareykanka laga leeyahay ayaa waxa uu ku tilmaamay waxba kama jiraan hadallada ka soo yeeraya madaxweyne Trump oo ah in uu door ku yeesho doorashada hogaamiyaha sare ee wadanka Iiraan iyo sidoo kale muxuu uga jawaabay hadalkii Trump ka soo yeeray oo ahaa waxaan ka doonaynaa Iiraan isdiibis aysan wax shuruud ah aysan ku jirin arintaasi muxuu uga jawaabay Trump sidoo kale waxa uu yiri iyo waliba Israa'iil way u dhaaranayaan ninka xiga ee hogaamiyaha Iiraan loo dooran doono waxay leeyihiin isaguna wax badan si ma noolaan doono arrimahaasi ayaan idinla wadaagayaa maalintii sagaalaad ayuu galay dagaalka Mareykanka iyo Israa'iil ay ku qaadeen Iiraan iyada nafsad ahaanteedu waxa ay wali wadaa duqeyntii ay ku haysay wadamada bariga dhexe iyo waliba Israa'iil inkastoo madaxweynaha wadanka Iiraan uu raaligelin ka bixiyay in duqeynta uu u geystay wadamada dariska laakiin waxa uu yiri hadii aanan dhankooda nala ka soo weerarin anaguna wax dhibaato ah uma geysanayno laakiin waxa ay wasiirka arrimaha dibadda oo isaguna wareysi siinayay telefishinka NBC arintaasi wax laga weydiiyay oo wadamada bariga dhexe maxad u weeraraysaan oo saaxiibadiina waxa uu yiri inagu wadamadaasi ma weeranayne danaha Mareykanka ama saldhigyada Mareykanka ee halkaasi ku yaala in la ka soo weeraray ayaan weeraraynaa haddaba telefishinka Iiraan ayaa caawa waxa uu baahiyay gantaalo cusub oo nuucooda aan horey loo arkin oo caawa Iiraan ay ku weerartay wadanka Israa'iil gantaaladan waa saddex magac oo kala duwan ayayna leeyihiin waxa la kala yiraahdaa Qadar Imaad iyo Khaybar Shikim ayaa la kala yiraahdaa iyagoo diraya ayaana telefishinku muuqaalkan uu ka soo duubay telefishinka afka Carabiga ku hadlay Al Jazeera ayaana baahiyay waxa ay leeyihiin 700 kilogram waaye ilaa iyo hal tan ayay dhan yihiin meeshay ku dhacaan waa u dhamaatay kuwaas sidoo kale waa kuwii madaxyada badan lahaa ee marka la diro isqaybinayay marka saddex nooc oo cusub oo aan horey wali loo arkin ayaa hadda caawa Iiraan waxay u dirtay Israa'iil iyadoo gantaaladaasina ay yihiin sida ay sheegeen kuwo waa dufcadii 28aad oo ay diraan ilaa iyo muddadii 9 maalmood ah oo dagaalku socday marka waxay leeyihiin dufcadan waa tii 28aad Mareykanka iyo Israa'iil waxay leeyihiin meelihii laga soo tuuri jiray ayaan weeraray gantaaladan hoos u dhac weyn ayaa laga dareemaya meelihii ay ku sameynayeen waan burburinay meelaha laga soo tuuro markastoo aan aragno waan duqeynaa laakiin Iiraan xilliga habeenkii ayay qaraabtaa iyadoo maalintii waxba ma duqeyso Mareykanka iyo Israa'iil iyaguna maalintii ayay qaraabtaan oo Iiraan ay duqeeyaan laakiin sidoo kale Iiraan iyadoo habeenkii marka la afuro kadib ay howlahooda isku dubaritaan kadib markaas ayay bilaabaan inay gantaaladaasi ay ridaan marka muuqaaladan aad arkaysaan waa telefishinka Iiraan oo baahinayay markii gantaaladaasi ay dirayeen saddexda nooc oo cusub oo ah dufcadii 28aad ay leeyihiin oo Qadar Imaad iyo Khaybar Shikim la kala yiraahdo isla markaana tankoodu u dhaxeeyo 700 kilogram ilaa iyo hal tan ayaan caawa waxay leeyihiin waxaan u dirnay wadanka Israa'iil sidoo kale waxaa jirtay in habeennimadii xalay ahayd ilaa iyo 10 qarax laga maqlayay caasimada Tel Aviv waxa ay sheeganayaan ilaa iyo 3 qof inay ku dhaawacmeen laakiin muuqaaladan aad arkaysaan ayaa laga soo tabinaya in halkaasi ay ka jiraan Iiraan hadda waxa gabagaba u mareysa doorashada hogaamiyaha sare ee lagu bedelayo Ayatollah Ali Khamenei 28kii bishii hore ay dileen Mareykanka iyo waliba Israa'iil laakiin Israa'iil waxay leedahay qofka bedeli doona waxa oo loo magacaabi doono hogaamiyaha sare ee Iiraan bartilmaameed ayuu noo yahay Trumpna waxa uu leeyahay sidoo kale hogaamiyaha sare ee Iiraan ee soo socda wax badan ba siima waari doono oo ma jiri doono marka la doorto isla markiiba waan dili doonaa Ingiriiska oo dagaalka galaya sheegay Trump ayaa cambaareeyay wuxuu leeyahay ra'iisul wasaaraha Ingiriiska Sir Keir Starmer waxa uu leeyahay waxaan u sheegayaa ma doonayna dadka doonaya dagaalka inay ku soo beeraan kadib markii aan ku guuleysano marka waa soo dahdeen xilligan idin ma baahnin ayay u dhigantaa oo Trump uu ku leeyahay dawladda Ingiriiska marka suxun ayuu ugu daadinaya marka waa tii la weeraray sidoo kale goobaha shidaalka ee wadanka Iiraan oo aad arkaysaan holacan inuu ka baxayo oo Israa'iil ay weerartay Sacuudi Arabiya waxa la leeyahay 2 qof ayaa dhimatay 12 kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii in gantaal uu ku soo dhacay magaalada la yiraahdo Al Kharaj oo wadankaasi Sacuudi Arabiya marka wali dagaalku waa uu socdaa
Trump waxa uu leeyahay waa inay isdiibaan. Haddaba wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Iran Abbas Araghchi ayaa waxa uu markii labaad wareysi siiyey telefishinka NBC ee Mareykanka laga leeyahay. Arrimo dhowr ah ayaa wax laga weydiiyey. Arrinta ugu horreysay waxay tahay waxa la yiri hadalkii Trump ka soo yeeray oo ahaa inuu door ku yeesho in doorashada hogaamiyaha xiga ee waddanka Iran sideed u aragtaa. Arrintaas waxa uu yiri qofna uma ogolaanayno in arrimaheena gudaha uu soo farageliyo. Arrintan waxa uu yiri dadka Iran ayay u taalaa oo horey u doortay qubrada dooranaysa hogaamiyaha sare, waxaana uu sheegay qof kale wax shaqaha ku malan shaqadan shacabka Iran ayaa iska leh ayuu yiri. Marka sidaas darteed waxa uu sheegay in aysan u ogolaanaynin cidna inay ku lug yeelato doorashada in hogaamiyaha sare ee waddanka Iran. Sidoo kale waxaa la weydiiyey arrinta ah in madaxweyne Trump uu yiri Iran waxaan ka doonaynaa isdhiibid aysan wax shuruud ah ku jirin inay isdhiibaan. Arrintaasi sidee u aragtaa ayaa la weydiiyey. Waxa uu sheegay dagaalkii hore ee 12 maalmood ee bishii June ayaa waxa uu xaqiijiyey Trump sidaasi oo kale ayuu bartiisa uu ku soo qoray barihiisa bulshada ayuu leeyahay. Laakiin arrintaasi ma aysan dhicin. 12 maalmood kadib Israa'iil ayaa waxay weydiisatay ayuu leeyahay xabad joojin aysan wax shuruuda ku jirin. Marka sidaas darteed wuxuu yiri markaasi Israa'iil ayaa cusatay laakiin inagu isma dhiibayna ayuu yiri inaan sii dagaalano iska caabinta sameynana waan sii wadaynaa ilaa iyo inta ay nala gaarto. Waxaana uu sheegay inay sii wadayaan inay difaacaan danahooda. waxa uu yiri waxaan sii wadaynaa inaan isdifaacno isla markaana aan difaacno dhulkeena, dadkeena iyo waliba sharafteena. Sharafteenuna iib ma ahan ayuu yiri oo sharafteena ma iibsanayno. Haddaba waa kan wasiirka arrimaha dibadda Abbas Araghchi ee Iran oo maanta wareysi siinayay telefishinka laga leeyahay NBC waliba barnaamijka Meet the Press oo maalin kasta oo axada ka baxa telefishinkaasi. We allow nobody to interfere in our domestic affairs. This is up to the Iranian people to elect their new leader. They have already elected the Assembly of Experts, and the Assembly of Experts would do the job. It is only the business of the Iranian people and nobody else's business. Well, this is what he asked previous time, last year in June, that when Israel started to attack us, President Trump used the same phrase, unconditional surrender. That was the tweet he made. And that didn't happen. We resisted, and after 12 days, Israelis asked for unconditional ceasefire. So we never give up, we never surrender, and we continue to resist as long as it takes. We continue to defend ourselves, and we are defending our territory, our people, and our dignity. And our dignity is not for sale. dhinaca kale waxa wax laga weydiiyey dowladda Mareykanka waxay tiri dowladda Ruushka ayaa waxa ay siinaysaa dowladda Iran halka maraakiibta diyaaradaha iyo waliba ciidamada Mareykanku ay joogaan oo ay u basaasayaan. Arrintaasi ayaa wax laga weydiiyey. Waxa uu sheegay in markastaba istiraatiijiyad wada shaqeyn ay kala dhaxayso mana uusan beenin mana uusan rumaynin. Wuxuu leeyahay istiraatiijiyad wada shaqeyn oo dhinaca militariga ayaa horeen u jirtay ilaa ay haddana waa ay jirtaa oo Ruushka iyo Iran ay wada leeyihiin. Marka waxa uu sheegay in ay markastaba dhinacyo kala duwan ay dowladda Ruushka ay ka caawiso, laakiin waa uu diiday inuu yiraahdo ha ama maya. Laakiin waxa uu yiri iskaashi dhinaca militariga ah markastaba Ruushka wuu naga dhaxeeyay, haddana waa uu naga dhaxeeya. Marka waxa uu xaqiijiyay in arrintaasi inuu si toos ah uu u beeniyo amaba uu u rumeeyo waa uu diiday. dhinaca kale xogeyaha guud ee amniga qaranka Cali Larijani ayaa isaguna bartiisa X waxa uu ku soo qoray in ciidamada Mareykan ay gacanta ku hayaan. Arrintaasi wasaaradda gaashaandhigu waa ay beenisay, laakiin sidoo kale waxa uu ku sheegay bartiisa X in Mareykanku uu qarinayo tirada ciidamada ka geeriyootay. Waxa uu yiri 5 ilaa 6 ay sheegayaan, laakiin inta ay qarinayaan ayaa ka badan. arrintan waxay ku soo beegantay xilli madaxweyne Trump iyo sidoo kale xaaskiisa Melania, madaxweyne ku-xigeenka JD Vance iyo wasiirka gaashaandhigga ama dagaalka Pete Hegseth ay soo dhaweeyeen naxashka meydadkii ay ku jireen 6 askari oo ku geeriyootay saldhiggii ciidamada Mareykanku uu ku lahaa Kuwait, halkaasi oo madaxweynuhu salaan uu kaga qaatay. Marka waxay leeyihiin tirada ciidamada Mareykanka uga dhimatay dagaalkan intaasi waa ay ka badan tahay, laakiin waa ay qarinayaan oo shacabka Mareykanka ayay arrintaasi ka qarinayaan. Marka arrintaasina waa ay jirtaa. waxyaabaha kale ee soo kordha haddii aan leedmo waan arki doonaa, laakiin waxa la yaab leh in Iran caawu
ay sheegtay in gantaallo cusub oo aan horey loo arkin oo weliba 3 nuuca oo tankoodu 700 oo kilogram ilaa iyo 1 tan u dhaxeeyo ay ku qaraaceen caasimadda waddanka Israa'iil ee Tel Aviv iyo meelo kala duwan oo weliba waddankaas Israa'iil qasaaraha ay geystaan waan arki doonaa waxaan ognahay gantaaladii difaaca Iron Dome-ka in ay daalisay Iran sidii gantaalo ay habeen weliba kala duwan ay ugu garaacaysay oo hadda intooda badan ba aysan celin karin oo ay ku dhacayaan gudaha waddanka Israa'iil marka waxyaabaha ka soo kordha waa idila soo socodsiin doonaa aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo